wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka Soomaalida waa barnaamij gaar ah kaga hadalno goobaha taariikhiga ah ee dalkeena markaasi ninka ku wareysanayna waayi joog qof waayi joog oo maaragtay waxa badan ka og meesha marka aan taariikhda raadinayno waxaan meesha ka marnayn dhalinyaro sidoo kale ayaguna maaragtay aan ku weydiino taariikhda marka meesha aan raadinayno inta ay ka hayaan iyo intay ka garan og yihiin basad u taqaaniinba galabta barnaamijkanaga waxaan diiradda ku saaray mawduucan maaragtay galabta ka hadlayna uu yahay magaca Urubo iyo waliba sidoo kale taariikhaha aad salahan arkaysan ay leeyihiin iyo badan iyo magacyada sida uu ku baxay nala socda waxaan ku wareysan doonaa dad maaragtay aad taariikhdan u haya iyo waliba dhalinyaro soo horeen kugu sheegnaba سودو شبل تيفي أديك نقول بالعالم العالم. مجا عبد المرال هذا أدوات على يقان. عبد المرال أدوات. ومجا عمارة مكيس الله في قديم. ما شاء الله. ما أنت وحن كسوغن هاي عروبا كسوغن. مجا عن عروبا إنا ماركتي وحبضن وبشر تنباه. مجا عن عروبا مجا باكوهر ومشي عم بأكبر وحال بيتري. دور قيادات بي هاي. صح. عروبا أنت سنة وحن تشتي حبيبتي من شي بيها هن تشتي. waxay ka mid qayb waxa deganaan jirtay wargeefanays oo loo yaqaan bulshada tributary qayb waxay ahaan jirtay anagrafiya qayb waxay ahaan jirtay aqueduct qayb waxay ahaan jirtay caafimaadka qayb badan bay ahaan jirtay xilligii kacaanka la dumiye waxa laga dhigay 74 kaliya ma qashay 70kii baad ismaheeda la bilaabay xilligaas saas u ah waayahay magacan urubada uruba af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa wixii cusub uruba wixii cusub af Soomaaliga lagu yiraahdaa marka hotelka marka cusub hotel uruba sida hadda Jubbo kale Jubbo waxay ahaan jirtay kaawo dhagax laga qodo marka qaybtii uruba ay heebtan sugunta horta waxa jira adduunka dagaalka sokay anagu waan ugu cusba adduunku waa soo maray waxa wadana waxa bedelay dagaalkii sokay laana hotel uruba waa dhaweyda kan hore dawladda xasan sheekh maxamed waa nimid way dhismay waan tagay markaan min iyadoo xataa dhagaxaan iyo waxaan ma jirin masha Allah meesha waxa ka dhacay khayr Allah ka dhig marka meeshan taariikh qadiimi lahayd حتى واجهوا وحي أنت اسمه قديم لما بروسنا وين بالباب كسرنا نشري. فهمت؟ يمكن يقام بيقام. فهمت؟ أبي القرآن جدينا بلاي سان لين بسنو. ما ده حد أجنبي ما بنيش الوسط ونشري يعني. اللي جالس. مركا سبتر بعد عيا بيوك. مركا مجعان ربو. سووا كيل عشان لسان مقالكوا إنه بمقع حريمين. مقع حريمين، ربو أقصد بحي مركي السي وحول بمقع بالنبحي وهتل عصب لأنه عصب وهو عرب وواحد عصب وتلك عصباء وسفي عنه اسمه مركز النبحي عرب. ساسي العرب. واي هاي ضدكم ماشي نشوي يفضل ريمان سأقولنا هاي خيرات بعد الصوب ماشي أنا أنت شيء كيسني وشك تبنوني تبع عياري. تبع ودون معها. نحن بركض بنكو عيار كذا أنا سديت كذا قد كاس وسأو الوان يقصوا اللي قد كذا أنا قايم مكة أنا سديت كذا والله هي ونحن كي إلا ما أنت تدلعت كربان هاي حمر بنتاجو ما شاء الله هدي عيال المدي مركب اسكو في ريال ماشي سبحان الله ماشي كوكرتي بابا سندات ميدا بكوي سوي هذا حافظ كان ده مركز سيدان كشتو وحذر كيسا في لما ده هورك ويجري كله مركز عادي جباب اللي بكوي الحمد لله ما شاء الله انتو كشد ما بكبر ممكن بعدين هذه سراك اللي سوى يابس بنا مع الله بهذا وهذا مركز محل السوشيدا
marka waayo joognimadaadii markaad yareed iyo marka xaaladda haatan meesha barooniga ku dheeli jirta ay kala duwiin maxaa dareentaa ما شاء الله horta day mar hadda qarni waliba sabankiisa leeyahay qarni waliba sabankiisa maanta nin bay cusub tahay anna mar bay ii cusbay adduunka isbedela aad iyo aad waxaad leedahay ninba tookadiisa ها من أكل سمن ما يكسب الناس بالي قف مركو قدر اللي يسعون قف كلب عيس معناه ومركز ساسي الحمر وكسبرته وحاسو وظنوها هي بسم الله الرحمن الرحيم aad حتى halkaas ugunta liida maaragtay ciidamada Soomaaliya meesha ku gaardiin jireen bay ahayd tarbuuna ma jirin meel weyn dababa ma jirin soo marka meeshaan si loo fiiriyo dalkeena khayraad ah بريو فرسان من أهان شفتوا بتكوسان وش بسيط horta waxaa jira maqal jirtay isla dhigi jiray hooy Afrikay hurudday dumbar waaqa hurudday sawir halkan hadda badalka ummadooda badda wada galeen maahan dadku beero lahaa shaqo dawlad jirtay waxyaal badan baa jiray wixii dhan baa baabay marka maxay noqotay nin walow nafsada nabiga ummadda يعني قفل بينه نفتي سوق شقة مركان تبيان هو على قد الله تبارك لذيذ هو الجنة وشاد هي مركا جملة هو وين جملة عن سكدة وعن لبسوا شبه وعن بدأ قديت شرم لبسوا بكتي أنت حتى قريب وعي أنترتي قرب كلاب بي أنترتي هي مين بتلاقي هاي شالكم كلاب وها كلاب ولا بركض ولا الجود باش كأن كبار بسي لكن دولة دهور الملاهي مركا marka loo taalka si loo fiiriyo ma Soomaali baa dhistay mise isaga dawladii kacaankii baa dhisay dhismaha loo dhiibay barqashiyo xilligaas uu ahaa kacaankii baa dhisay 47 baa la bilaabay jecel sidee tahay ayadii ma baad qaranka iyo isku mar wax yar bay kala horeeyay marka kana horeeyay marka baad horeysay marka si hadan u fiirno hadda anigu waxaan bal yaabanahay جملة واوي جرى وحنا وبدي بقدي دغ waa fuqay hadii laftiisu duqoobo badi ba garaacdi marka waa dhagxi ba fuqay jaranjarti ba waxay kula noqonaysaa buur jaranjar haanida laga soo digtay aan jir meel habaysan ay halkaas hore way taariikh hormaraysan maadaama aad way joog horana tahay waxyaabahan adigu saaxiib badan ku fiirsanayo kuwa daadaada kuwa maaragtay hadda soo kacay maxay sawiran karaan ninkii da'dayda wuxuu sawiranayo anigu saan ka taagin kii hadda cusubna meeshaad ka taagantiin buu ka taagan yahay Soomaaliya hadda waa nooc waa ka marka ilmaha hadda samanka dala doona iyo hadda kuwa haatan ba joogaba kuwa aniga camalay ku iga waaweynba yani taariikh ugu baahan yihiin taariikhdu wixii taariikh haydo walba beende aw waxta taariikh qeyd madxaf baalad madxaf baa lagu qeybinta سوي وراقي فيش الجبر بنان كم خايدة وأفكار الجيجة ترتيبنا الدولة بربكي يركو واحد تاريخ لا يراهن دمان تشيء كرينا ميل بلاي نا إرادة مان تاريخ قرن ورن كرم ميل بلاي لقي سوق هذا متر إلهي رجدي سلقة مقص إني كعتا كسف في عناته وخرج قبا هو أنا الماء قال مثلا وكلا إني كسف في عناته حمر كذي هري متكفي عنه marka hadisaan u jeedno meeshaan dabaq waa dhisan dabaqan arkayso saa u dheer waxaa lagu gadi jiray spare parts ha gaal baa ku gadi jiray balangal qalbiij baa spare parts yani ajani baa ku ganacsan jirtay dad ka dhawaatay hindi arab iyo lama kala socon hatta yuhud baa ku ganacsan jirtay kaleeto digsuudiya lahaa yuhud baa lahayd fahmt marka hadda طريق التجربيين مالي وتلا صامر وحي دوا وتجربيين مركا سي هدي لو فيرينا دان حمر ما سومالين هبا وان سكرنا ما شاء الله هرت بي ما كلسوني الهل بس كلا فضو كلسوني هدي لر سومالي سيدي دي اسكا وقف صاد اسحلقان با لو بخي ميل بدن لو بسي ثاني يك بدن با لو قبن كرا لكن الهي سومالي قلوبتودا السعودي إلهي سومالي قلوبتودا السعودي لأن سوماليا من بعد واحد تقن 20 سنة هبل بعد بيكرتان أقومت مركب برتا تلان وعلى ده اسكون شو تفكوا واتقال وجي جس لك هبل ما بيكرتي وأقوم بركب مجلس يا مركب هذا مجلس أقول هبل وهذا بيكرتي وأقوم نص حتى أنا حمر إن بتني أنا أقوم بكرته
haddii halkaa loo dhaafo waa beri waxba kama aqaan waa kaa xamar bersamaadkii intuu ka shidnaa baan aqaan marka jamalkan hadda intaan sheekaysanayna waxaad igu tiri meel wuxuu lahaa leyr god yar buu leeyahay god yar kaas leyr kale waa taa dekadii hore dafuurkeeda hore dekada laga shiisho leerka marka maraakiibta oo daarabac siyaala baarka isku arkaan inay dhagaxya marka hadda meeshaan yaroo dhisan ay muxuu jiraan wallahi saaman ku arka hoos god bayar bay leedahay ciyaalku galaan godkaasaan waa guri halkaana degan waa ku soo quraacdaa waa imaan jiray waa dhex fariisin jiray صح بريغاد يا رجال markaas la iga soo dooni jiray maanta akhirtaanka buburka ilmahaygan ka soo wad ilmahaagi oo aniga ilmahay wallahi alcadin ilmahaygi markaas soo xasuustay taydii hore waaye marka maxaa dareentay meel dareegaya see waaye mar baad uu gaajo meesha ku ciyaarayso ku ciyaar jir aad aragto farxad gaar ah ku galayso geel laba jir soo wada mar baa Soomaaliya tiraada la yaabnayso marka soo la yaabtay geel laba jir soo wada mar baa lagu yiri aad iyo waa meel la soo wada maray marka hadda godkan god hoos u dheeraa waa god yar oo qof jeegis xataa waa ka yiri marka xilligan baad la galo waa adiga qof kala barxata ma gaara bad markay buuxdaa laakiin markay ay caari tahay qof joogis ma dhamma marka hadda badu markay dhisaan tahay marmar bay ka kacsanaan jirtay saa ishta bersamaadkii meeshaan waxay ahayd meel ay badu soo gaari badu waa soo gaari jirtay soo gaari jirtay hatta laamiga geeska marka timad bay laamiga ku soo teeri jirtay biyaha laamiga bitay marka qaar guryahan iyo sidii dhagax baa waxa soo dhagaxa ka celinay jugta guriga waxa dumiya jugta difaac adag bay la Soomaali marka laamiga marmar bay gaaray waa faniinka soo gaari jiray waa arrin yaab maanta marka hadda marka qarnka meelaha soo martay meesha banooniga waaye islaam baa gaxara lagu guursadaa dhaxradad loogu maamaan hebla ka waran baa la ruunkaasi tabariyo la dhaqle waaye marka waxay tiri bari baa soo maray leedahay taban waaye hadda Soomaali badan ayaa jirto maarey dadka qurbaha iskaaf dadka tirsanaya jiro barnaamijka sooyaalka Soomaalida leeyahay marka barnaamij waxyaabo badan ku ogaana hadda saaxiibo badan kulli hadda aan dad badan oo igisi sareeyay helaya aniga dadkan ugu imid bal helaya aduu marka kulli waraysiga nagu wuxuu ku saabsanaa badaan iyo magacyadiisa ku baxay iyo saadii sheegtay xarmo badan ay meelahan la haajirto seeway من سيبيا كليا وحي هاي دولة دريك دو قيبود واي قريب من أكل شيء كرت تطلع مع حبك سوي قيب وردي فلوس تشوكو مشي قيب وردي فلوس هنشر تقول حد اللي يقبل يصير بالتاري قيب من السيبيا دقرين مربي حتى قيب سلق هاي مرك قيب تعافماتك وحيالها صدم أوابني على سوق الكرمة عاقد وحسد مرك بريجاس وساردها يسوق كره شقوين كود waxay ahaayeen taas kama sheekeen kara shaqaalada dawladda maahaniirna waa aadiya marka adigu barsimaadka ii sheegtay meelahan aniga aqoontaydu waa yaraantii inta aan kala indhaha kala qaadkeeduna kacaankii u ahaayay waxa ka dambeeyay waayahay adigu goormaad garowsatay inaad maaragtay taariikhdan waa taariikh markii si loo fiirsho meel dheer taabanaysa dadaan nasiib u yeelan inay maaragtay taariikhdan wax ku ogaadaan wax ka fahmin marka saaxiibo badan ayaa jira maxaad maaragtay inuu fil lahayd dalkoodu waayo nin walba dalkiisa marka dalkaaga aad mintid naftaada waa aamin horta dalkaaga aamin markaas dalkaaga aaminaysa wabillahi tawfiiq waxa xasan leedahay haddaad dalkaaga waxaan kugula dardaarmay muwaadinahu min nacalku noqonay waxa leeyahay dal walba dadkiisa dhista dalka hadda dalkaaga dibdimisiya ku dhisaya daladu guriga ftada dabka qaba in aanu ku dhiso kasoo kugu dhisa adaaba iska gubay way ugu dambeyntii saaxiibada barnaamijkan daawanay maxaad kula talinayaa maaragtay dhanka maaragtay danta dadweynaha iyo dalka loo tiiliyo wax kale aan ku raadtal maanta ma jirto dadka dadweynaha iyo dalka loo hiiliyo dulmigana la iska ilaasho oo ku dhawaay anigoo magacayga Ibrahim Abko Awees Abko أنا خديمي سجيس وإن لسه كفامة معنا هذا كاك عمل ما يعمل نخكرة وما لكن واحد لسه كفامة ومقتى مركب أبكو هذا شيء أبكو شيء أبكو معنا لسه كفام كعادي وسعة مركب ووقت والبوع وإحنا قد كسر درس
هاي وأكو درسها لازم ويدي واحد الناقش كيسا قلبت ها والمشي قلبت الحبيب والله قلبت إنك هو بدشته وما أدري معنا ما دام دلكي أني بدشتي ما لا خارو أني حيسة إنك هو قدشت أجعله وكبيرة ها واي تاريخ طبعا تاريخ أو مدع قربة أني ماشي waxaa ku noolahay horta 32 sano ku noolahay xamar gudeed واي macnaha nolosheeda macnaha marka qaar waxaa dareemaa isbedel weyn inuu isku soo kordhi rabo fahamtay yani in oo jawigiisa wax walba iska bedeli rabo yani dadka bulshada ku soo bada doonto macnaha meeshaan oo dadka damaashaad iskaga imaadaan waqti walba aniga kaliya kuma xirna inaan damaashaad u imaado dadka dhan qaarkood hawa gadisay u imaadaan wixii ka dheer ma sheegi maayo واي مركا ماشي مثال صح مركا بالهجرة بركة كريمية ومركا مركا تاريخ كيسا hoteelkan horta anaga jiilka oo hadda waxaa la qabsani wixii 80maadka dambeeyo عادية yani hoteelkan hadii laga yaabo laba jiil nasnaga horeeya laga yaabaa sax عادية marka anaga hadda ma la qabsan karno wixii tan hadda soo socota oo lagu dhiso oo lagu sameeyo ala qabsan karnaa maana hadda wixii naga horeey dadkii la qabsaday عادية ma dhaqo karna naga ما أدري كيلو مركا sax مركا تعيش تاريخ مركا جيب رايس taariikhda wadanka oo Europa xageeda كعربة waxa uu jeclaa yani tii la soo maray inay ka sii fiicnaato عادية oo hadda waxtar weyn ka sii yeelata macnaha waqtigaas yani nolosha oo waqtigaas jirtay nolosha hadda jirto isku hal ma aha hadda nolosha wax weyn laga gaari عصري السنة casriga soo naqdi ma casriga asal naqdina macnaha jaahilnimo manu geenin yani mutawwar al naqdi waqtigaas macnaha fikradan wax hadda jirto ma jirin hadda macnaha wadanka wax walba ku soo kordhooya in cimaaro waxa arkaysa oo sarooyin kale arag oo fiber glass la dhisooy macnaha sax yani saas si qurux badan inuu wadanku si qurux badnaado mustaqbalka ha wajalay inuu macnaha wilibi ani aruurteeda oo si damaashaadna wilibi ka qoro taariikh buug dheer aan ka diyaariyay macnaha fahamti عرب تاريخ ولا لا تاريخ ذات أنا دب مو ورادي كرنا واحد دب ورادي كرين يعني اسكو فرخ منيبي أنا يعني دلكو وقلني برشة عن أخوان سجوني علينا معنا أو عرب أو نخانو وحالا ياوب يعني نقول شيء دعس كين إنه أنتوا كنا مادي ما فهمتي ضدنا وقت ياس راحوا ومجرين أنا قاعد راح إنكم إيمانون شخذين شيء نختي مثلا يعني إني يبسي برتبي فاهمينه جودة أنا وكسي بيرتي معنا عربه هذه سال لقى سي خرحي وآتي هذا وجعلاله معنا هذا برسمات وحاجة راح أقول معنا لكن هذا ضلك الشقاء وحياة تصابون ضلك يعني كل جوهر من كده صح واحد أنا أسكت لكن مو حل هذا هاي ضلك بيجيبه ومعرف ضلك إنه دب صار ناخذ والله آتي هذا ورجع تاس إنه دب صار ناخذونه معنا أرتا مثلا سبحان الله أرتا تمسيت سنة كهر تمسيت سنة كهر bulshada ma khawajin anaga ma fahamti waxa ka sii yaraan jirtay meeshaan wax imaado 10 qofood waa ka yaraan jirtay haddana ma sha Allah dhan walba fiirisidna wax walba qolo u jooga ma fahamti marka yani dadka ka tay laakiin dadka isku imaadeen waxyaabii dadka isku keenin waxa kamid ah cuntaraadsi iyo gurdhisid in wadgelo qofka haduu nabadgeli helo wax labaad uu ka fikiraa waa maxay ha فاهمينه إنه راح أو نودجلي وكسيبير بس فاهمينه دواهي مقعي محمد عبد يوسف علي هذا محمد عبد يوسف وياي محمد وقلبت حن كسوقنا حيب تعربه نعم ولا قلبت ماشان كل الناس سواء هذا ما تمشي كساحب حيبته والله أرتها أنا ماشان دقنا هاي مالتي مركي شغلة هذا قلبي أنا ماشان حوجا ير أنا سكان نستا وقوي قاس يجوا قاس دقن مركي شغلك صار محل كانت كسوق بدلتها نعم مركا
meeshaan waa xeeb Curuba leeyo meeshaan jala ku jiraan nacam hotel weyn ku yaalay oo caalami ah marka waxa adduunka dhan waa ka diiwa galsiyahay macnaha hotel la yaqaan oo ahayba hotel Curuba la yiraahdaa dadkii soo gaarin ku jirtaan dadkii soo gaaray aniga wali inta ayadoo shidan tahay oo wali ma gelin ma calafsanin laakiin anoo joogo waa jirtay oo ayadoo shidan tahay laakiin aqli iyo fikradan ku aado ma lahayn markaas ma lahayn waayahay magaca Curubo soo ku baxay noo sheegi kartaa magaca Curubo wallahi waa igu weyn sabab ku baxay taariikh wax yar xataa kama hayo laakiin dad naga weyn oo meelaan laga helay hadda oo kulli wax dhan laga helay hadii aan ku soo weydiinayo aan ku soo marka adi ahaantaada inaan maaragtay taariikhda raadiso taariikhda inaan dib u raaco waa jecelahay taariikhda waa lagu nool yahay taariikhda waa ku noolnahay inaan taariikhaha iska baarno iska fiirsano xilliga awoodaashin soo jiri waaye xilliga mataqaana waalidiinteena ay mataqaana dhaleen xilliga noolaayeen waaye waa la karaa waayahay ayu sartan geeskeena ayu taariikh ma ka hayda sartan iyo waxaan maqlay horta xilliga hore waxa laga fiiri jiray elboorka diyaaradaha soo degayaan markii kor la fuulo waan la arkaa anigu mar waa fuulay elboorka waa ka arkay marka xilliga gumaystiina saas amal macnaha waxba laga wada jiray casri ma jirin doorbin ma jirin waxyaabaas ma jirin marka waa la kori jiray elboorka laga arkay diyaaradaha qaabka si soo degayaan ay soo hoos u kala socoto ma laga ogaan karo laakiin diyaarad inay degayso inay macnaha ay duul rabto laga ogaahay bis intaas kaliya saqafkaas kor la fuulayna intaas aan ku ogaa wax tarkeeda jeceshaad taariikhda inaad dib u raadiso maaragtay ilmahaaga iyo sad uga sheekayso نعم آد وابو قريان قارب ودياريبا حتى إنا أخرستان إنا أفك أول شغبة أنت بيه مركا وقت يا جريدة وأقرت من قارب قري سي معناها وقادان اللي يدي وحنا قارنا إسكول كان كسوقاتي وعشرة إسكول أهانا نلوسي سيد كتاريخي سي وحيابها سكلا وحيابها سكلا إنا أول شغبة أيها بإسكول كبر دونا بحي كلنا ودنبين goobaha taariikhiga ayaa la fiiriyo inta badan isku maxaa soo baxlaa wallahi inta waxa u sababa qabiil waxa la yiraahdaa ka dhacay marka hadda alxamdulillah waa ka soo kabanay dawladnimo hadda jirto waa noo bilaabatay saddex dawlad ka hor waxa waaye mid walba waxay sameeynaysaa xoogaa yar dhisme ah tii kale ku wareejinaysa xoogaa kale dhisme gaaray mid kale ku wareejin hadda tan saaran waa dhameystirey wada kan kalena ilaahay noogu keeno inuu dhameystiro taasaan ku soconaa ilaahay noogu dhigana ilaahay noogu dhigo maasha allah aad iyo aad waa fila riwaayadda aan ku jiifo waayaba rajada aan ku noolahay kamid tahay waa rajada aan ku noolahay kamid tahay inay waddanka dhismaano aan gaarigayga baabuurteeda iskaga wareego mataqaanaa ilmahaygan mataqaanaa farxad ay ku noolaadaan كسي أمني بدن كسي في عن الحمد لله والله إلهي أنك برينا إلهي أنك توجينا إلهي أنك برينا كسر شبل تيفي أديك قبل عين معاي مجاعي سيد علي دار حرسي سيد علي جلس رح نحسب أن هاي عروبة وميل مع شو جداد وتدين بل سيابها بتشمل بس قلبت يبور waxaan ku imid waa goob taariikhiya oo meel shaqadeeda doomanka mid ayaa leeyahay waxaa ku yaalo goobo taariikhiya sida ujeedid waa goob magac weyn waa goob taariikhiya bal curubo markaan maqasho maxaa kugu soo dhacay waxaa igu soo dhaco sidii awooyaashii iga sheekeeyeen goobo taariikhiya hoteelka waxaa ku yaalo bangiga silsilad weyne hoteelka iyo inta ahaa goobtan oo taariikhiya oo meesha ku taalo goobta tan waxay ahayd saafilaayo guri sida liiga sheekeeyey marka curubo magacaas goob taariikhiya waay waxa uu fikir markaas ama taariikh markaa wallaahi aniga fikradeyda kulleeba dadkii iga horeeya sheegi karo waa qof waxbaa looga sheekeeyaa sida ujeedid waxaa waaye goob fac weyn aad iyo aad taariikh xitaa waxaa jiro waxyaabo laga qorqoray meel kastoo taariikhna waxay leedahay taariikh la qoray marka taariikhdii dib u raadin jecesha maadaama hadda uu yaalo xoogaa kaaga sheekay inta kale aad iyo aad inaan raadiyo waa jecelahay oo taariikhdeeda wax ka barto buugaag aan ka qoro insha allah goobaha taariikhiga carruurtaada ama faamilkaaga sidii u damaashaadaan waa ugu sheekeyn doonaa kulley waxaa waalid wuxuu soo maro awoodkiisa ugu sheekeeyaa aad iyo aad inaa wax badan ka fahamsiiso
عادي kusoo dhawo Show TV Waan ku dhawaa. magacaaga waa Xasan hay Xasan galabta halkan ay ku kulannay bal sabab ma meeshan xeebta bishii kartaa xeebtan horta shaqo iyo waxaan u imaadaa inaan ku dawaashto oona ku shaqaysto subaxda hore waxaan ka shaqaystaa galabtiina leeyada galabtiina waa iskaga qaboobsadaa sidaa u jeedo hawa ku qaadataa markaas waay bal meeshan taariikhda waxa ka taqaanaa urur magac urur ku baxay magac urur horta wuxuu ku baxay horta aniga hadda dabcan ma aha laakiin maxay ila tahay inay meeshan ay tahay meel oo ka baxsan badadka kale sidii ka duwan hadda bad dhinacaan naga jirto oo geelaq la yiraahdo sidii badan looga rasaaqayo ama wax looga raadsanayo baddaas loogama raadsado dabcan haddaan aan ka hadlo dhismahaanne waa dhismihii maxamed siyaad bare oo sidaa u jeedo dowladdii hore anagana maxaan aanay dowladdii dadkii marka waa dareesana markii dowladdii dadkeedii baa marka meeshaan siyaabo kala duwan marka u jirto inaad ku dalxiisto marjo ku qaadato taariikh dalka maxay hay'ad gaar ahaan hadda qurubadan magaceedii haddaad ahayn taariikh kale maxay hay'ad soo meeshaan waxaan jirtay meel hotel oo macnaa baraagna ku taalo meeshaan aa u jeedo hadda oo jajaban maxay ahayd meel dhisan sidaa u jeedo qaarna waa qaar dhismihii hore ka heray qaarna dhulkay ku darsoomeen hadda isbeddel baa hadda noo muuqdo sidaa u jeedno isbeddelkaasna maxay tahay dhismooyinkan cusub isbeddel noo muuqda ee middaas ee la mid tahay dhismo waxay iska beddelaan inuu isbeddel jirane maxaa kaaga xaqiiq ah meelo badan oo dhisan hadda ii muuqdo ay dowladda lahayd sartaanna waa sarta haddaa kunka fiirisaba kaaga sii dhaqmuuqanaysay waa sar lagu magacaabay lacagta oo macnaha xiisaha ay gelisay dadka dhisay markii muuqaalkeed la arkay sawirka lagu soo sawiray lacagta kulli horta inay wax faahfaahin ay u baahan tahay markaa kunka aragto muuqaalkeeda oo dhammaystiran maba kaa qarsanaba waa iidiyo meesha taagan keliya hadda maxay u baahan tahay inaa la dagac tiro oo macnaha dadka deganna la yiraahdo dad oo wixii meeshaan kaga imaado inagaa ka mas-uul ah oo dagactir lagu sameeyo dib loo dhiso midaas waa jeclahay weli maxaan sii jeclahay wax walba ay naga maqan in dib aan u helno marka taas midaas waa mida horta ay dowladda ay u taagan tahay dowladda waxay u taagan tahayna shicibka waa u taagan yahay dowladda shicibkay u taagan tahay shicibkana dowladda u taagan yahay wixii oo tafaaruq ee markay naga hiraan dabcan haddii dadka ay dowladda u baahneen dowlad ma jiri lahayd guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii sooyaalka soomaalida anigoo Furtuun Maxamuud Axmed ayaa la socodsiinay ina soo saaray waxaana dhanka kaamirada muuqaalka quruxda badan daawanaysaan ka soo qaadaya Cabdirasaaq tan barnaamijkan barnaamij lacayna sidaas nabadgeliyo